halka warkaas uu idinkaga imaanayana waa TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xarunta dhexe ee TV-gu uu ku leeyahay magaalada Kismaayo imikana akhbaraadka dibadda ciidamada dalka Syria ayaa dib u qabsaday deegaano muhiim u ah howlgalka ka soconaya wadankaasi Syria saraakiisha ciidamada dalka Syria ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay guul ka gaareen magaalooyinka Abu Fas Abu Qasab iyo sidoo kale magaalada xadka Ciraaq la wadaagta Deir al-Zur militariga ayaa waxa ay sheegayaan in ay muhiimad gaar ah u leedahay kooxda Daesh ee dalkaasi ka dagaalamaysa magaalooyinkan laga qabsaday waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalka ay kaga sifeenayaan guud ahaan wadanka Syria horaantii toddobaadkan ay ahayd markii ay ciidamada dalkaasi duulaan xoogan ay ku qaadeen magaalooyinkan waxaana muuqata in ay guulo xoogan ay ka gaareen dagaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda mucaaradka ah ee Daesh waxaana tani ku soo beegmaysaa xilli la wiiqay awoodda kooxda Daesh ay ku lahayd gudaha wadankaasi Ciraaq iyadoona tani ay markaa muujinayso in markaa meesha laga saarayo kooxda Daesh ee ka dagaalamaysa gudaha wadankaasi Syria maadaama looga soo adkaaday dagaaladii cuslaa ee ka dhacayay gudaha wadankaasi Ciraaq dowladda Bangladesh ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay walaac xoogan ka muujisay dhibaatooyinka xoogan ee lagu hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool wadanka Myanmar ee Rohingya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bangladesh ayaa waxa uu ku tilmaamay waxa ka socda dalka Myanmar gaar ahaan gobolka ay muslimiintu Rohingya ay degaan Rakhine State kaasi oo markaa lagu dilay tiro kor u dhaafaysa ilaa 300 oo qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay wasiirka waxa uu ugu baaqay beesha caalamka in ay markaa taageero xoogan la siiyo oo la taageero dadka dhibanayaasha ahi sidoo kalena ay tallaabo ka qaado beesha caalamka dowladda Myanmar oo uu sheegay in ay mas'uul ka tahay xasuuqa xoogan ee ka soconaya wadankaasi Myanmar dowlasiinta dowladaha reer galbeedka iyo jaamacadda Carabta ayaa ku baaqay shalay in ay qaramada midoobay kulan ay ka yeelato oo degdeg ah xaaladda cakiran ee Myanmar isla ahaantana siyaasad ahaan loo taageero muslimiinta dad gaaraya 70,000 oo qof ayaa ku barakacay dalka Bangladesh waxaana xukuumadda Bangladesh ay markaa ka codsatay beesha caalamka in ay gacan u fidiso dadka ay markaasi gaajadu daashatay ee ka soo cararaya xasuuqa ciidamada Myanmar muslimiinta Rohingya ayaa u firxaday dalkaasi Bangladesh oo ay daris yihiin halkaasi oo dhawaantan barakacayaashaasi ay ku booqdeen wafdi ballaaran oo ka socday dalka Turkiga kuwaasi oo Bangladesh ugu baaqay in ay la qaybsadaan dadka muslimiinta ee Rohingya dhibaatada loo geystay ee u geysteen ciidamada wadankaasi Myanmar warkii oo daawadayaal kala socoteen TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland anigoo aadan maxamed salaad aadan Kismaayo aan idin socodsiinaya daawadayaal xilligan weyginta warkan warka xiga inta inuu dib hawdu kulmi doono waa bahda wararka TV-ga Jubbaland oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh